السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هادي آبad taqaanid qof narcissist ah waxa shaki la'aan ah ina aragtay waxyaabo yaab leh oo strange ah oo qariib iyo cajiib ah ay ku dhaqmaan ay sameeyaan oo caadooyin ah oo hab dhaqameed ah oo hadal ah wax uun ay sameeyaan oo la yaabto laba kamid ah waxyaabahaas la yaabka leh ta koowaad waxa waa been of course narcissistaha noloshiisa oo dhan ayaa been ku salaysan laakiinse beentan ka hadlayo waxa waaye beenta aan loo baahnayn oo isdhehaysid qofkan walaalay horta muxuu been waxaas uga sheegayay they don't even need inay waxaas been ka sheegaan so what's the point waad isdhehaysaa tusaale ahaan waxaa ku dhahaysaa remote-kii oo uu og yahay inuu halkaas saaran yahay buu wuxuu ku dhahayaa ma aqaan runtii tv-ga ay gaarkiisa ka raadi I don't know macnaheeda ma aha necessarily of course muhiim kuma arko inuu ku caawiyo ma rabo inuu kula shaqeeyo ma rabo uu iskala kaawan yahay laakiinse khasab ma aha mar walba inay saas tahay beentaas yar oo macnaha leh wuxuu u sheegayaa si uu u dareemo inuu kaa raayay waayo control iyo awood sheegasho iyo inuu mar walbaba qofka kale upper hand amaba gacantiisu ay ka yara sarreyso ayuu jecel yahay sooma so therefore waxay doontaba ha ahaato inuu been ka sheego jecel yahay inuu isyara daamariyo jecel yahay haba yaraato it doesn't matter in wax weyn oo been uu ka sheego meeshuu jiray iyo wax ay isku ogeydeen in la sameeyo uu soo sameeyay ama inuu khasaariyay uu xagaa qaran waxyaabahaas waaweyn iska badaa waxyaabo yar yar oo macno lahayn like saacadda waa meeqo wax dhacay oo la og yahay oo haddaad sheegaraysid xaqiiqada aad si fudud ku ogaan kartid uu been ka sheegaya مثلا let's say kubaddaad wada jeceshiin aad daawatiin ama markaas kubaddi weydiisay maxay ku dhamaatay yaa raacay wuxuu iska kaa dhahayaa koox hebel raysay ayadoo la og yahay heli karo koox hebel inay raysay of course they had wuu inkiri doonaa waxaas ma dhihin buu dhihi doonaa so it doesn't matter to him inuu been ka sheego waxaas marka muxuu been uga sheegayaa wuxuu uga sheegayaa ama uga sheegaysaa qofka baan ka wadaay in ay dareemaan inay ku sirayaan inay dareemaan gotcha you see faryaradayda ayaan saa kuugu hayaa mana dareemaysid I got you wrapped around my little finger oo waxaan doonaan kaa dhaadhicin karaa waxaan doonaan kugu dhihi karaa waa iska kii aaminaysaa caaday ka noqotay even the little things xataa caadana way ka noqotay sidoo kalena wuxuu dareemayaa asaga inuu kontaroolo sheekadaas ay u socoto ha yaraato ha weynaato so beenaha yaryar haddaad ku aragtid qofka narcissistaha ah that's what they do ta kale oo weird ah oo ay sameeyaan waxa waaye oo marka qaarkood ama la yaabaysa ama ku qoslaysa ama aad ku wareeraysa waxa waaye waxay iska dhigayaan inay ku maqlaynin adigoo iyadoo la farfadhiyo oo uusan waxba muhiima sameynaynin qofkii aan waxba muhiima la sameynaynin ayaa wax ku tiri jawaab u baahan comment u baahan falanqeyn u baahan intay doontaba hala ekaatee qofkan they will not respond waxa ma dhahayaan kelmad afkooda ma ka soo bixinayaan like inaan waxba dhihin taasna waa wax aad ugu badan aad bay ugu badanta narcissistayaasha dadka kale waa laga yaabaa qofka marka qaarkood wuxuusan muhiim u arkin inuu iskaga yar aamuso hadduu iska xirxiran yahay ama aaminsan wax soo kale ah adigana hadal badanta sheeko badanta waxaasoo kale inuu iskaga yar aamuso waa laga yaabaa laakiin narcissist waxa waaye wax muhiim ah baad weydiisay wax caadi ah baad weydiisay wax u baahan in laga jawaabo ama hadal laga yidhaahdo ayaa tiri ma hadlayo inuu ku maqlay inuusan ku maqlina ka shakinaya marar badan laakiinse later on waxa ogaanay inuu si fiican oo faahfaahsan kuu maqlay because wixii aad dhahaysay ayuu sheeko kale kugu soo daray hadhow exactly what you said buu sheeko kale kugu soo daray hadhow again waxay ka tahay aniga ayaa sheekada xukumo aniga ayaa hadalka dhinacu socdo wixii laga jawaabayo wixii la dhahayo anaa kontaroolo I'm not gonna give you the chance ina adiga xakamaha haysid ama inaa siman nahay ma rabi inaan ku dareensiiyo so inaa waxa waaye inaa hogaamiyaha hayo inaan ku dareensiiyo weirdos right haddii ay jiraan waxyaabo weird ah waxyaabo la yaab leh waxyaabo fajiciso kugu ah ama kaa qosliya ama aad la yaabtid aad fahmi weysa halkee u qaadaa please nala soo wadaag insha allahu tacaala dadka kale ku xiran channelka ayaa ka faa'iidaayo oo arkaayo oo fahmaayo inaysan ahayn iyaga inay waalan yihiin inay keligood ahayn ay fahmayaan
intaasaan kusoo gogeynaya videoga maanta insha allahu tacaala xusuusnoo inaada keliga ahayn fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu